munaasabadan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka imaaday dhankii magaalada caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhar xubno kamid ah golaha wasiirada uu kamid yahay wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaar kamid ah xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxgarad uu kamid yahay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo waliba sidoo kale saraakiisha labada dal ee Itoobiya iyo Djibouti ee qaybta ka howlgalka AMISOM safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Soomaaliya waxaana munaasabada ujeedkeeda ay ahayd kala bedel lagu sameeyay saraakiisha sector ee ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaana munaasabada hadallo kala duwan ka jeediyay saraakiisha ciidamada Itoobiya ee qaybta ka howlgalka AMISOM saraakiisha ciidanka Djibouti ee qaybta ka howlgalka AMISOM safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada waxaana dhamaantood ay ka hadleen waxqabadkii ciidamada AMISOM ee ka socda dalalka Itoobiya iyo Djibouti inta ay ku sugnaayeen gobolada dhexe dalka waxyaabaha ay ka qabteen Dr. Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo hadal dhinacyo badan taabanaya goobta ka jeediyay ayaa sidoo kale soo hadal qaaday warkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo jawaabta ay dowladda Djibouti ka bixisay asigoona tilmaamay in saameyn aysan ku reebi doonin warka madaxweynaha howlgalka AMISOM wuxuuna raaligelin u diray madaxda Djibouti ciidamo ka socda dawladda aan walaalnahay oo Djibouti oo ciidamada Itoobiya ku garab ah waad ka warqabtaan dareenka ka soo yeeray madaxda Djibouti oo walaalaheena oo runtii cabsi ka muujiyay eed ka muujiyay sida ay wax u socdaan annagu reer Hirshabelle haddaan nahay waxaan leenahay waa idila damqanaynaa walaalaheen Djibouti garabkiinaan nahay wixii aad noo gasheenaan ognahay ilaa adduunyada laga duubaan walaalnahay oo aan derisnahay insha Allahu tacaala isbedel kastaaho hal mar ma wada hirgalo waxaan rajaynaynaa in walaalaheen Djiboutina isbedelkaas wixii ka galay dawladdeenu ka qanciso shacabkeennuna waxay diyaar u yihiin inay ka abaal celiyaan muxuu ahay ka garaabaan walaalaheen wixii ay nagashteen iyo walaaltinimada naga dhaxaysa run ahaantii isbedelku waa isbedel wanaagsan guud ahaantiisa laakiin taariikhda in intii dib loo raaco darsiyadii laga bartay hore loogu socdo ayaa fiican Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV Beledweyne